nolosha iyo hadafkeeda. Why we are living, maxaynu u noolay? What is the purpose of life? nolosha tan maxay tahay? danta laga leeyay waxaynu u joognaa halkan maxay tahay? rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa miisaan dhaba oo aynu ku qiimaysanno fawska. ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyay kullu nafsin daa'iqatu lmowt وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إلهي قرآن كوحو لي نف ولبوي جيريونسا نلشو تنلشوغا وحسيس عنا يماها مهما كان لديك من مال وسلطة ونعمة ويتقي سبالين wax kastoo agtaada yaalla nooc kastaba uu yahay waad ka tegaysaa, waad geeriyoonaysaa baa lagu tilmaamay. wainnamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaama, waxaa laydin dhammaystirayaa waxaa shaqaysateen baa ilaahay leeyahy maalinta qiyaamaha. adduunka haddii wax lagaa siiyo waa dhadhansiin, waa lagu dhadhansiiyey, wax weyn maaha. laakiin wixii aad shaqaysatay cimrigaaga aad ku bixisay, insaanku ra'su maalihi waa sanawaadka uu nool yahay. wixii aad shaqaysatay waxaa lagu oofinaya, lagu dhammaystirayaa aakhira baa rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala yowma alqiyaama. sidaa awgeed waxaa lagu xidhayba miisaanku inuu labadan eray yahay, faman zuxzixa can الnaar wa udkhila aljanna faqad faaz. ninkii naarta laga dhufto ee naarta la weydaariyo ee janno la geliyaa, kaas baa guulaystay baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. guusha dhabtaa qofka gaadhay waa qofka kan. markaas aayadda ilaahay haddana wuxuu ku gebagabeeyey wama alxayaatu اddunyaa ilaa mataacu اlguruur. nolosha adduunna ma aha mid kadsani waxuu bidhbidhsado mooyaane. yacni nolosha adduunyo waa mataac, laakiin yay mataacu tahay ilmaqruur, ku la kadiyey, ku aan caqliga si fiican u isticmaalin baa tan nafmooda. walidaalika ayuha alikhwa, kow markaynu wax qiimaynayno waxaynu leenahay the whole life aan eegno, noloshoo dhan. adduunku waa qayb yaroo ka mida noloshaada. maraaxil bay noloshaadu maraysaa. maraad caloosha hooyadaa ku jirtay, maraad yareedoo soo koraysay, maraad geeriyootay, maraad xabaal ku jirto, mar lagu soo saaro lagu xisaabiyo, iyo dayn halkay ku gebagaboobaysoo ah laba meeloodoo bini aadamka loo qaybinayo meesha aad ka tegayso. ma jannaad aadaysaa mise naar baad aadaysaa? waa inaynu fahnaa markaa noloshan aynu joogno maxay macno samaysaa. qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa noloshan inay tahay imtixaan, waa mowducu ibtilaa. wax kasta oo nolosha intaad joogto kugu soo baxaana waa su'aal jawaabteeda la sugaya waxaad ku qorto whatsoever. haddaad caafimaad qabto waa su'aal, haddaad xanuunsanayso waa su'aal, haddaad xoola haysato waa su'aal, haddaad faqri ku jirto waa su'aal. whatsoever, wax kasta oo nolosha kula kulma waa beyj nolosha ka mid ah, laakiin ah imtixaan xagga rabbi ka yimid oo la eegaya waxaad kaga jawaabto. mid walibana jawaab bay leedahay, mid walibana jawaab bay leedahay. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu ina leeyahy tabaaraka aladii biyadihi اlmulk wahuwa calaa kulli shayin qadiir aladii khalaqa almowta wاlxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala. waxaa laynoo tilmaamay geerida iyo nolosha iyo waxaan oo dhammi macnaha qurhe looga dan leeyay inuu tahay liyabluwakum ayukum axsanu camala, in laydin tajribeeyo, laydin itixaamo. ilaahay markaa wuxuu ina leeyahy subxaanahu wa tacaala war adduunku inaa jacalnaa maa cala aradi ziinatan laha. dhulka waxa kor saaran oo dhan waa qurxun baan dhulka uga dhigay baa ilaahay leeyahy. oo maxaa looga dhigay? linabluwahum ayuhum axsanu camala, inaan dadka itixaamo kooda camal fiican baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala. marka ilaahay wuxuu leeyahy nolosha gebigeedba waxaan idinkana in laydin itixaamo. the purpose of life waa intaa. waxa lagugu itixaamayaana waa maxay? ee ugu horeeya waa takaaliif ilxayaa.
وعبادة وقهر الرئيسة وهي إنسانكم بفطرته بيدهدان أي عابديه لكن وحل وقوه تحامي لمن توجه العبادة إليه عبادة يد الله منسى إلهنا القرآن كوحكوت المامية تتكبر أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ما ركت كور رمبان ربي لي كون إله هذا كردكت وحي عابده وحي نفته دونته نفتيس وحي أي دونته كستو كردكت أيها الإخوة مركا وحين لهنا noloshan aynu joogna iyadu guul kale ma leh noloshan aynu joogna waa imtixaankaasina jawaabtiisa rasmiga ah adduunka bacdan minha in lagu horumariyo waa laga yaabaa nooc min alciqaabaat inay kugu dhacaan waa suurtagal nooc min annicma inaad hesho waa suurtagal laakiin waa a bit of it ma aha jawaabtii rasmigahayd wainamaa tuwafawna baa la yidhi ujuurakum يوم القيامة وحبا لغاسي يدوني انت تشوكتي بوزيتيف يا نيجاتيف كو دونا بها هذا لكن يدو الرسمية واحد جوابتها ليس أبا ليلي محي يوم القيامة ولذلك مقياس كو وحينو لين يقوش الرسمي قاهي ما ها هبل با لعك علي ما ها هبل با عرور بدن علي ما ها هبل با مدحوينية مقعية ماموس علي وحاسو دمها حباشا مركا تكتا عيدي كو يدين ميسو وردونيدي محاد كتب محاد حول الشري محاد ضدي عرور كتب محاد مقعية ماموس كتب وحلقوا ويدين يا أسئلة مالتي دبرك آدم تكتشرتي اللي ويدي ألست بربكم با مالتها إلهي كويري هل كان مركا تكتنا فمن ربك بالغو يدين يا هو يدا ايدنتتي دوني عصباتي تي هروات كتب ايدنتتي كاركاك على غار رباينا ديبتو ايدنتتي كاك واسدحدن سؤالات واحد كاك جوابته من ربك وما نبيك وما دينك أي هوية كوا كاسبة كوا أي ديجا الرسمية جوابتها تكبحيسو أي ما دوحي كذا بينكم من المرس صدرت بإلهي وحلي سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وحق ليستي ليباني من زكاها نفتن قفك طاهرة قفك النظيفية يحرمها كنظيفية ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله يا رسول كسعيد راعضة أي قوليستي قول وين بان رب الله سبحانه وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون إذا قرآنكو عدوا فائزين كشيغا يوردن وأعماش آخرتك كليم قرآنكو وحاو فوز عظيم الشيغا يوردن وآخره تتك قوليستي ميزانك فوز كريلهي وحوينيدي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أيها الأحبة حلنا نلاشنا سيدة بوفهم dadkana inuu nimi waa dad tani uu muuqdo dad soon wax ka dambeeya ma arkaan intooda badan tanaana qiimo u sameynaysa wax walbana tanuu ku miisaamaya yana sidii kale inuu fikirin inaynu tan wax walba ku miisaano ee wax wala aynu qabanaynaaba ha noqdaan muxuu aakhira ka jira muxuu ilaahay agtiisa gooya muxuu janno ka tara muxuu naar ka gooya naar buu iga fogeynaya mise waan ku dhacaya haddaad u xidhato inaad aakhira badbaado anta alfaa'is haddii si aakhira aad badbaadi weydo dunida wax kastoo aad dhaqdo khasaaraad ku sugantay ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala inuu xaqayna waafajiyo kuwan xooggoodu khasaarina uu inaga yeelo aakhiriya adduunkoodaba kuwii rabbi u hagaajiyo in rabbi subxaanahu wa tacaala inaga yeelo sala allahuma cala nabiyi muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam